دكتورو أضاغن cid alla cidii isku dayda inay yacni si aad dhaqan xumaha ay u libisato ama ay muxuu ahaa mataqaanaa tinta u jarato ama ay surwaalada u jeexjeexdo iska ilow intaad muqdisho ku nooshahay inaad qaybta sare ee timaha deyso dhinacyadana aad ka xirto isla markaana aad ku xarako surwaalka nooca jeexjeexa halkan sawirkiisa kaga muuqanaya oo dhalinyaradu ay aad u xirtaan amar ka soo baxay taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa waxaana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biira bartayda Facebook oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran madashan waxaa goobjoog ka ah gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale waxaana halkan lagu gubayaa waxyaabo maanka dooriyo oo ciidanka ilaalada deegaanka xamar ay ku soo qabteen howlgal ay ka sameeyeen caasimadda Muqdisho inta kadib taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka xamar Maxamed Carabow Cali oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka ilaalada deegaanka xamar ay tallaabo adag ka qaadayaan cid kasta oo ku xadgudubta anshaxa suuban ee islaamka iyo midka dhaqanka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeyay aan loo dul qaadan karin dhalinyarada qaybta sare ee timaha deysata dhinacyadana xiira aan si kala u dhigay waa dhalinyarada jarta fooda sida uu hadalka ugu dhigay wuxuu kale uu sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan ganacsatada iyo dadka soo xirta dharka jeexjeexan oo sida sawirada halkan kaga muuqanaysa oo dhalinyarada qaarkood ay u arkaan xarago taa mid ka bedelan ayay qabaan dadka aragti ahaan ka soo horjeeda in dharkan loo xirto xaraka ahaan balse ay tahay mid jirkooda ay ku soo bandhigayaan oo aysan cooradooda marnaba aysan astureynin waxa kale uu taliyuhu qeexayaa inay soo rogeen amar ah in qofka doonaya inuu dhigto xafladda caruusa in uu marka hore xafiiska taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka xamar uu ka soo qaato warqad fasax dhigasho caruuska ah hore uma aysan jiri jirin wuxuuna sheegay in amarkii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ay dhaqan gelinayaan oo caruuska habeenka xafladiisa ay dhacayso ay ku egtahay 12ka saqda dhexaabin wixii xilliga ka dambeeyana cidii ku kacda amar diidan waxa uu sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono waa ciidan u dhisan adaabta iyo nabadgelyada dhaqan xumada hidaha ee dhaqanka Soomaaliyeed cid alla cidii isku dayda inay yacni si aad dhaqan xumaha ay u libisato ama ay muxuu ahaa mataqaanaa tinta u jarato ama ay surwaalada u jeexjeexdo surwaalada jeexjeexana kamid ah tinta weyn oo la deystaa kamid ah dadku marka uu birteen biya xaflad aroos qabo waa inuu warad ka qaataa xafiiska ciidanka taliyaha ciidanka adaabta iyo nabadgelyada oo soo weydiisanaya fasax oo weydiisanaya fasaxaasa la siinaa arooskana waxa lagu ogyahay 6 saac wixii ka dambeeya waa la gabagabeynaya marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey ilaahay ka baqa waxaad gadanaysiin xalaal ka dhigta yaan daroogadaas iyo dhibaatadaas waxaad ku sameyseen adduunka aakhirada ku roontaa ma jirto kuna xijima kartiin waxna kuma qabsan kartiin ilaa waa wax aan lagu bixiyay ilaa dhamaadka muuqaalkan haddii aad la soo gaarto aan kaga mahad celinayaa nabadgelyo